السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قالي أو ولاشين حمد علي محمد هلكا إجل سعتين وحمد حال الجنال مالي وناكسن سودو هذا ومانت إيه مقال كلا عصب وهرلا إيه وحيالها أو قصة أنك هالي دونا إن أنت أنا نقول جرين وحنا نكعد صناعة سبسكرايب لايك شير كومنتين أسوي كدتين إن ما أنتوا حنا وذا برودكت لما يستلم برودكت كانوا أدو أنفعها وادت كهربان ناتشورال ويتين أو أن ربين كيميكا إن استعمالات إن قفكي أن كيميكا أن ربين إنه استعماله أو ربين إنه ناتشورال ويتين حلو أو جر كيسة سكين كيسة ودلال يقول كلي وياش لكن ويتين سائدة هي كيميكا أن أباهنين أيوة قصة مقال كان برودكت كان برودكت لما يستلم وأنا ست وعلى ده goldi allaha goldi wuxuu quseeyaa waa dadka naturalka ah wuu ballaaran yahay goldi wuxuu ka samaysan yahay kan waa cream face cream waaye face creamkiisa laba nooc kala ah waa dry iyo oil waaye beauty cream waaye shining xitaa qofka bini'aadamka qofka facekiisa uu siinayaa qofka aad u baahan yahay inuu midabkiisa noqdo midab furan oo qurux badan oo cad oo maxay ahayd sida uu u dhashay leh qurux badan inuu ahaado rabo wuxuu isticmaalayaa goldi iyo waliba productyaal badan kulligood hal mar kama wada hadli karo muuqaalka uu dheer yahay laakiin maalinba mid ayaan idiin soo bandhigi doonaa insha Allah goldi wuxuu leeyahay original iyo fake iska ilaaliya meel kasta oo ku aragto waad ka iibsan kartaa screenshot waad ka qaadan kartaa haddaad joogto Nairobi waa iimaan kartaa dukaankayga waad ka helaysaa productigan oo dhameystiran dukaankayga wuxuu ku yaalaa sigiska masaajidka sigiska hotelka ku dhagan Sakina Hotel qaybta hoose ee undergroundka ee dahabka lagu gado Xamdi Xaali shop 14 iyo shop 13 dukaanka labaad oo noo sameeyay insha Allah muuqaalka ku xiga ayaad ku arki doontiin insha Allah biidnillaahi alkariim dukaan labaad furay dukaanka labaadna waxa yaala ma ahan waxa dukaankii hore yaala laakiin wuu ka duwan yahay waxa waaye decoration home decoration waaye waxyaalaha guryaha lagu qurxiyo muuqaalan idinkaga soo sameyn doonaa insha Allah waa isla arki doonaa labadan cream labadaba waa face-ka laakiin waxa kala isticmaali kara qofkii dry iyo qofkii oil ah ayaa kala isticmaali kara sida u jeedin screenshot waa ka qaadan kartaa laakiin kaliya waxaan ku sheegaa inuu original iyo fake uu kala leeyahay iska fiiri inta aadan gadanin qiimahay ku kala duwan yihiin hatta aad ku kala garan kartaa originalkiisa iyo fakegiisa haddii aadan aqoonin meesha laga fiiriyo sidoo kale waxaan halkan noo yaalo face wash kan waa face washkiisa waaye haddii aad adiga tahay dadka face washka isticmaalo oo aan saabuunta isticmaalin haddii aadan face wash isticmaalin oo saabuun isticmaashidna saabuuntiisa waa tanaa halkan waa face washti halkaanna waa saabuunti qofkii aan saabuun isticmaalin face wash uu isticmaali karaa qofka saabuun isticmaalana saabuuntu isticmaali karaa labadoodana waa same shaqada ay qabanayaan isku si waaye wax ay ku kala bedelan yihiin ma lahan haddaa rabtana face washtaa qaadan kartaa haddaa rabtana saabuuntaa qaadan kartaa marba midka adiga kula shaqaynayo sidoo kale kan waa maskigii oo black maskigii oo bedelan waaye oo goldigan waaye wajigaada marinaysaa markaad mariso kugu qalashana waad fiiqaysaa waa midii la fiiqaayay isagana maskigan waxaa loogu talagalay dadka wajigooda uu leeyahay nabraha afka kuwata waxa cad oo yariiska ah ama waxa midmadowga oo yariiska ah inay wajiga marsadaan markuu kugu qalalo oo soo fiiqaysidna wasaqda wajigaaga gudaha ku jirta ayuu soo nuugayaa okay halkan waxaan ku haystaa shower gel waaye shower gelkan waa goldi asaga waaye asaga naftirkiisa waa goldi shower gelkan aad u fiican yahay maxay ahayday jirka nadiif ka dhigayaa oo lagu qubaystaa musqushaada la dhigtaa marka qubaysanay sida lagu qubaystaa korkaagu nadiifinayaa qurxinayaa dhalaalinayaa ma sha Allah tabarakallah smooth u kaaga dhigayaa waxaana productigan iska lisaan hore idinku sheegayba dadka aan kiimikada isticmaalin oo rabaan natural whitening inay helaan waxaan rajeynaa insha Allah in aan gabdhaha Soomaaliyeed waxyaalaha jirkooda inta badan la shaqeynayo oo anfacayo aan u keeno mar walbana aniga kiimikada ma idin kula talinayay inkastoo jiraan gabdho badan oo kiimika jecel waan hayaa kiimika oo waan iibiyaa waan hayaa natural midka rabtida waan ka iibinayaa laakiin mar walba waxaa ku dadaashaa
shayga waxtarka leh oo naftaada iyo maxay ahayd jirkaagaba anfacayo oo birita ka maalin sida infakti aan ku gaarsiinaynin insha Allah ku dadaalkaas. tan waa shower gelkii waaye marka shower gelkaas jirku lagu dhaqdaa marka qubaysanaysid musqusha la dhigtaa waa lagu qubaystaa jirka lagu dhaqdaa maasha Allah korkaaga wuxuu ka dhigayaa clean oo weliba smooth oo biyo ku istaagaynin oo gacanta aad jeclaanaysid. then marka soo qubaysatid waxaa isticmaalaysaa body creamkiisana waa kana shower gelka marka ku soo qubaysatid oo banaanka ku soo baxdid korkaaga waxaa marsanaysaa body creamkan wuxuu ka caawinayaa waxyaalaha jirkaaga ku jiro oo wasaqda ah oo dhan inuu ka nadiifiyo sidoo kale jirkaaga inuu smooth ka dhigo haddii aad tahay qof allergy qabo ama xasaasiyad qabo oo korkaaga kor cuncun iyo xasaasiyad iyo waxaas aad leedahayna wuu ka caawinayaa insha Allah biidnillaahi alkariim waxaasoo dhan wuu u fiican yahay waana skin fair waaye aad u fiican yahay golden beauty lotion waaye wallahi aad kole ani hadda ka hor anigoonan haynin oonan aniga iibinaynin hal xaba ka iibsada oo nafteyda aan u iibsado ka isticmaalay aadna waa uga helay dabcan hadeertaana waxaan u keenay inaan business ka sameeyo haddii aad u baahan tahay waa ii imaan kartaa waa iga gadan kartaa haddii kaleeto dukaamada kaleeto oo suuqa meeshu ka yaalo waa ka gadan kartaa screenshotna waa ka qaadan kartaa mastimaa inaa ani ii imaadid laakiin keliya waxtarkiisaan kuu sheegayaa iyo faa'iidada uu leeyahay kanna waa 7 days waaye waxyar marka waxaa idiin sheegayaa kareemkan inuu aad u fiican yahay kan ma ahayn miyaa kii aan gacanta ku hayay markii hore kanuu ahaa dada ay imaadeen aan la hadlaayay suuqaa joogaa waa dareemi kartiin hadda xamdi xaali markay xaafadda joogto wax walba ayadoo ismarinayso idiin soo sharaxaysa idiin soo dhigi jirtay laakiin hadda waxaa waaye suuqaa la joogaa customeraa ku imaanayo qof wax rabaa ku imaanayo laazim marka stop in la dhaho waa lagu qasban yahay yaa la ii qabanin marka ma fahanteen kanna waa kaasaa waxaa loogu talagalay haddaa ujeediin dadka idiin tusaa haddee dadka faraha madmadowga iyo ay ka galeen meelahaas iyo meelahan iyo dadka ma aragtay midabkooda u dhashay balaaga oo marka hore madowga u dhashay ayagoo madow damceen inay iscadeeyaan kiimikooyinka isticmaaleen oo kiimikadii ay korkii ka hadlaysay madmadowga ku reebtay lugaha xitaa haaraa gala ma ogtihiin horta taas sas ma taqaaniin lugaha inay haara galaan mise wajiga bisa u taqaaniin lugaha naftirkooda iyo gacmahaba haaraa galo waayo maqaarka qofka bili-aadanka ah halkaas wuu ka adag yahay meelahan wuu ka adag yahay markaad marsato kiimiko waxaa laga yaabaa jirkaaga inta kale inuu soo cadaado oo uu soo dhaqo kiimikada ay soo dhaqdo laakiin maqaarkii madoobaa ee jirkaas kasoo kaco dhan intuu iskugu imaanaa halkaan iyo dad waxaa arkaysaa ka madow meelahan iyo dadka madow arkaysaa hadda aniga laftirkeyga meeshas madow waa yara iiga jiro madowgaas laakiin waxaa waaye markaa dhar dhaqdidoo kaleeto hooya ahay markaa dhar dhaqdidoo kale maryi ama joojinaysid majoojinta maradoo kale waaye laakiin waxaa la sameeyaa inta badan kareem waxaa jira aan jeclahay oo dukaanka xitaa aan ku isticmaalay insha Allah muuqaal idin kala soo samayn doonaa kareemkan aad aan u jeclahay kareemkan aan isticmaalayaa halkaan uu yaalaa marka xataa dukaanka iska fadhiyo waxaa sameeyaa mar walbo oo aan meel fadhiyo waxaan jeclahay kareemkan inaan sis inta u marsado gacmaha saas dhaho kareemkaas marka waxaa ku jeclaaday ani waxaan ahay wajigeygana waa oil laakiin gacmaha way qalalaan mar walba gacmahayga dry waaye kareemka marka ani waxaa ku jeclahay mar walba waa dufankiisa badan markaa marsatid dhalaalaa noqonaysa adiga dhan waa dhalaalaalaysaa marka waxaa jeclahay kareemkan oo kale markaa marsanaayo markaa keligii ah markaa shaqahaynin oo kale gacmaha waa iska masaajeystaa saasaa dhahaa sababtoo ah meelahaas xitaa gacmaha waa kaa madoobaanayaan haddii aadan ka shaqaynin waxa waaye ayaga iskama shaqaynayaan adiga waxaa la rabaa inaa gacmahaaga iyo jirkaaga oo dhanba aa gacan ku haysid oo naftaada aa ogaatid haddaad adii naftaada ogeynna cid ku ogaanaysa ma lahan markaa asxaabta qaaliga ah waxban iyo hadalka idin kusii badinin muuqaalkan yuusan intaas nooga sii dheeraanin waxaan rabaa inaad wixii la isku jeclaa igu casuuntiin subscribe-ta like-ta iyo share-ta iyo commentiga waa ogahay inaan iska ahay qof leysiya oo mar walba aan video update aan ahayn on daily video idiin soo gelinin oo marmarka qaar 2 bil aan idinka maqnaanayo oo sidaan idinkaga maqnaanayo hal mar aan idiin soo noqonayo
haddana waxaa idinka rabaa inaa ii cudur daartiin markaasoo kaleeto adduunyaan burinayaa noloshii dhinac walbo ah ani keliga isugayso anigaa hooyo ah anigaa aabba ah inaan ordo oo maxay aheeday awlaad mustaqbalkooda ka fikiro oo ani mustaqbalkayga iyo noloshayda ka fikiro oon maxay aheeday birito ka maalin awlaadayda mustaqbalkoodii markay wax soo bartaan waxay qabsan lahaayeen aan ka fikiro iyo inaan maalin walba video duubo waqtigayga ma isku saamixi karo berigii hore guriga aan joogay marka habeenkii oo kaleeto fiidkii galbihii guriga iska imaadoo kaleeto waa samayn jira laakiin hadda waxaa laga yaabaa 4 saac oo habeenimo suuq inaan ka tago 4 saac oo habeenimo markaa suuqa ka tagana anaa badaalanba oo markaas waxaa u baahanaa naftayda inaan waqti siiyo oo nasto oo qubaysto oo waqti qaato oo aniga naftirkayga aan maxay ahayd daalkii iyo culayskii maanta oo dhan shaqadii aan kusoo dhex jiray maskaxdii aan ka daalnaa maskaxdayda culays dareemaysa guriga markaa tago inaan nastaa u baahanahay waqtigaas shaqo intaa galo video idiin soo duubo idiinma soo dhigi kari marka daadiswaay aan idinka ka maqnaadaa laakiin insha allah waqti kastoo in time aan u arkay inaan 10 daqiiqo 15 daqiiqo oo video idiin soo duubi karo waa idiin soo duuba haddana markii la duubo editin uu rabaa in kala la saaro uu rabaa in inta lagala dhaco rabaa ani laakiin hadda waxaaba go'aansaday saana idinkugu soo duuba saana idinkugu soo saxooya wax editin iyo shaqo dheer ma maraayo ma fahanteen si adinkana wixii dukaanka yaala ila socotiin youtube-ka waxyaalaha aan uga soo hadlayo mar walba alaabahan ani aan hayo aan gadaayo aan idinkugu soo bandhigayo waxay tahay waxaa jira gabdho igu xiran yurub joogaan gabdho igu xiran maraykan joogaan kuwa soomaaliya joogaan any meel ayay kala joogaan gabdhaha meelo badan ay kala joogaan ani marka dadkii oo dhan taleefon ma ku kala gaarsiin kari wixii aan haayo hiblay maanta waxaase soo kordhay maanta waxaana noo imaaday maanta saanay waxihiin ma dhihi karo laakiin wixii youtube-ka aan soo geliyo waa wada arkaysiin that's why aan maanta shayga igu soo kordho oon u arkay inuu waxtar leeyahay aan idinkugu soo bandhigaya insha allah soo dhawaada walaalayga qaaliga ah yaana la iga xasdin subscribe-ta like-ta share-ta iyo comment-ta waxyaalihii la isku jeclaayo oo dhan insha allah marka adiga ii share garaysid wuxuu gaarayaa gabar kale oo walaashaa ah ama wiil walaalkaa ah oo ka heli doono insha allah biidnillaahi alkariim dukaankayga ma aha dukaan u qaasa dumarka oo keliya rag iyo dumar way ka helayaan waxay isticmaalaan dukaankayga rag oo kaleeto waxyaalaha caraftay ka heli karaan qamiisyada waa keenaa kabaha saantalka ah obinka ah waa keenaa koofiyado waa keenaa saacado waa keenaa cadarrada shushuka oo ragga ay isticmaalaan waa keenaa barfuuno qaaliyahaan keenaa dumarkana sidoo kale kareemo ayaga ragga naftirkooda kareemo waa keenaa shaambooyin waa keenaa product waxaa jira foomaan ah oo aan soo saaray oo body iyo face ah oo kiimika aan lahayn whitin aan lahayn waa foomaan waaye ragga quseeyaa ayaga naftirkii adinka naftirkiina waa helaysiin insha allah haddii ilaahay idmo cid walbo inuu dukaankayga uu ka adeegan karto aan ugu talagalay qof kasta oo u baahan maanta inuu iga shoobin garaysto ama iga adeegto wuxuu u baahdo inuu iga heli karaa oon ugu talagalay insha allah waxaan idinkaga sii tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu